السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا قيمها بدنا برتك وحنا برتنا يوتيوب كا يا عبد الله دقسي سوق فيسبوك بيج كنا حقدون ميديا waxaan maanta idin haynaa xogta jacaylkii lamaanihii qarniga Cabdo Shire iyo sidoo kale xaaskiisa iyo waliba xaaska Cabdo Shire oo sheegtay inay ahayd gabadh xaas hore ahayd oo ilmo u dhashay nin hore oo qabi jiray amba oday hore oo soo guursaday xogahaas oo faahfaahsan ayaan maanta idin haynaa iyo si jacaylkooda u guuleysteen iyo heerka ay marayaan TikTok-gooda iyo halka ay u socdaan lamaanahan aadka u quruxda badan ee aadka isku doortay saaxiibayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka like gareysid sidoo kale u share gareysid saaxiibada kale ee Facebook aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaadna gaadhiseen heer aad u wanaagsan oo aan gaarnay 10,000 ee semester aan dhaafnay 100,000 ayaan gegsanaynaa sidoo kalena followerska 100 followers aan gegsanaynaa 20,000 ee side iyo gaadhiseen aad baad u mahadsan saaxiibayaal haddaba gabadha xaaska Cabdo Shire maslaxo gabadha aadka imika u soo caanbaxday ee ay idaacaduhu si weyn u wareysanayaan ayaa sheegtay inay ahayd xaas hore qab ayuu la kulmay wiilkeena ma la odhan karaa mise waxaa la odhan karaa garabtu waa mid uu nabigu u duceeyey waa waxa alla u qadaray amba waa isku qoraal alle waa wiil iyo gabadh isku faraxsan maasha Allah in alle waa laba qof oo si weyn isku soo baxaya ruuxantii waxaan u soo ognahay cadin maslaxo cadoosh way ka weyn tahay ahaan amba aad ay u kala weyn yihiin cadoosh iyo maslaxo in si kastaba ha u kala weynaadeen balse weynaantu ma lahan wax ceeb ah ee waa wax iska caadi ah markaad eegto in dhaqankeena Soomaali ahaan iyo dadka adduunkaba oo waxaad arkaysaa wiil yar oo 25 sano jir ah amba 20 sano jir ah oo guursanaya islaan 50 sano amba 60 sano dhaaftay amba oday 60 sano jir ah oo guursanaya gabadh yar oo dhowr iyo 10 jir ah 15 jir hana dhacday amba 20 kaba ka yar balse si kastaba haatay inkastoo muuq iyo ahaan ay kala weyn yihiin amba waji ahaan bajahanba ay kala weyn yihiin oo garanayso inay samnaasla xalad ahayn Cabdo Shire inkastoo Cabdo Shire awsan yar ahayn oo gaaban yahay marka ay dadku faalanayaan amba isagu wax sheegtay haddana maslaxo inay ka weynto looga leebgin ma ogay dadka Soomaaliyeed amba bulshada Soomaaliyeed inay xaas tahay maslaxo oo ilmo hore iyo wad hore soo dhashay balse iyadoo oo u waramaysay raadiyaha aba idaacada goobjoog ayay sheegtay maslaxo inay tahay garoob sidoo kalena oday mar hore loo dhisay oo ilmo yar u dhalay balse waxay sheegtay si kasta ahaatee inuusan cadoosh weli xaas yeelan oo yahay wiil single ah ama wiil weli markii u horeysay bacdi iska bolonaka ilmada laga jaray waxaan idhaahdee saaxiibayaal haddaba arrintan ayaa noqotay mid xiise gaar ah leh oo si weyn baraha bulshada loogu hadlayay sidoo kale waxay tiri maslaxo waxaan moodayay markii ugu horeysay een kulanay ilmo yar oo ciyaal ah waxaan islahaa muxuu ka hadlayaa ilmaha yar ee ciyaalka balse ugu dambeyntii ayaan ogaaday inuu wiil yahay weyn oo loogu talagalay halkii oo saxda ahayd bixin kara amba reerkiisa wadan karaan idhaahdee ugu dambeyn calafkooda ayaa rabi qadaray weyn is guursadeen waxay noqdeen lamaane qarniga lamaanaha sida weyn loo hadlayo bartooda TikTok haddeer waxa ku xiran dad ka badan 300 oo kun oo followers ayaa durbadiiba la kariyay maslaxo waxay dadka badigood leeyihiin waxay meeshan u timi amba cadoosh ay u guursatay oo ay macnaha isku haybahayn oo dadku inta kale yiraahdaan jareer iyo jilic isku yiraahdaan oo jareer ka soo jeeda ay u guursatay inay noqoto caam oo ay caan noqoto oo ay noqoto qof magac leh oo qof magac ka sameeya kadibna ay markay magac sameyso hay magaalada gasho taas ma dhacin oo ma ma jirta wayna diiday waxaan suurtagalin inay tahay way sheegtay ay ku faraxsan tahay cadoosh iyo sigeeda oo dadka Soomaaliyeed buunbuunayaan waxaan jirin iyo been iyo protocol waxaan macnaha aanan dhici karin amba jirinba dadka Soomaaliyeed waxa soo ognahay waxa jira dad badan oo views ku raadiya amba caanimo ku raadiya ku kala kacsada page-kooda inay qofka wax habsan ahayn amba waxaan isagu galiba hay ka sheegaan oo hay views ku raadsan waqti walba saaxiibayaal haddaba taas waa mid ay maslaxo iyo Cabdo Shire bahay u qosqooyeen oo hay dadkii ee sameyn jiray inta badan waxyaalahaas oo kale ay ugu qosqooyeen ha iska ahaatee garoob oo inay calanku joogo way sheegtay balse cadoosh haddii ay soo ku faraxsanayeen ku faraxsan tahay looma baahna marka inay nahno inaku waa garoob iyo ka gada weyn tahay iyo ka duqeysan tahay midna ee waa inaan iyo inaku dhinaceena ambaliyada iyo ducada aan ku taageero oo ugu ducayn ducada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu duceeyay ugu ducayna saaxiibayaal haddaba arrintan ayaan maanta idin wadaagay barteenan inkastoo dadku ku soo gudbin maalin kasta oo ka caajis tiro dhalinyarada Soomaaliyeed aadka u tirada badan inay helaan warbixino iyo warbixinada ugu dambeeyay oo waliba hufan oo waliba in qiimo badan leh oo si fiican loo soo hubiyay ayaan saaxiibayaal halkan idin kula wadaagaynaa idinkana waxaan naga codsanayaa YouTube-keena aad subscribe dhahdaan sidoo kalena aad gabadha ka furataan una share gareysaan saaxiibadiina kale ee Facebook iyo YouTube iyo Instagram TikTok intaba ku jira saaxiibayaal